kulan wacan saaxiibayaal halkan waa Dalwanaag TV qodobada aan maanta idiin soo gudbin doono daawadayaal wararkan idiin hayna waxaa qayb ka ah madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo kulan muhiim ah la leh ergada qaramada midoobay iyo shirkaas oo ay ka maqan yihiin Axmed Madoobe iyo Saciid Dani xili la filayay inay ka qayb galaan Imaaraadka Carabta oo dowladda Soomaaliya sheegay inuusan aqoonsaneyn iyo dowladda federaalka ah oo jawaab degdeg ah ka bixisay arrintaas midowga musharaxiinta mucaaradka oo magaalada Muqdisho la sheegay in ay soo galiyeen hub aad u tiro badan haddaba maxaa ka jira in dabaqyada dheerdheer ee Buulxubay ay ka degan yihiin lagu xiray hub noocyadiisa kala duwan ah iyaga oo sheegay inay isdifaacayaan qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawadayaal idiin soo gudbin doonaa oo qayb ka tahay Faadumo Cali Jaamac Nakruuma fanaanadii weyneed oo Muqdisho ugu geeriyootay cudurkii halista ahaa balse daawada intaan u gudagelin marka koowaad muuqaalkan like inoo saar aragtidaada iyo fikirkaagana qaybta fariinta nagula cabir sida aad qodob kasta u aragto in Imaaraadka Carabta uu dowladda Soomaaliya u aqoonsado dowlad aan la aqoonsaneyn sidee kula tahay sidoo kale inuu dowladnimadeena inkiro aragtidaada iyo fikirkaaga ma ku raacsan tahay taas waad ku mahadsan tahay aragtidaada iyo fikirkaaga qodob kastana waad ka aragti dhiiban kartaa daawadaheena qiimaha badan oo Puntland iyo Jubbaland ayaa ka maqan shir muhiim ah oo Muqdisho ka furmay kaas oo ah mid ka mid ah shirarka ugu muhiimsan iyadoo oo sidoo kale shirkan uu yahay mid ay ka qayb galayaan madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir waxa magaalada Muqdisho ka bilowday kulan ay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir sida ay ku warantay wakaalada wararka ee Soona waxaana kulanka looga hadlayaa khilaafkii hareeyay hanaanka doorashooyinka ee dalka kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galaya wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle iyo gudoonka gobolka Banaadir waxaana shirkan ka maqan madaxda Puntland iyo Jubbaland shirkan ayaana waxa uu ka mid yahay mid ka mid ah shirarka ugu muhiimsan ee la qorsheynayay in mudaaba uu magaalada Muqdisho ka furmo iyadoo oo ay ka qayb galayaan madaxda kala duwan ee dowladda dhawaan Imaaraadka Carabta gaar ahaan maalintii shalay ahayd waxa uu sheegay inuusan dowladda Soomaaliya aqoonsaneen sidoo kalena uu sheegay in dowladda hadda ka jirta wadanka ay dhacday waqtigeedu dhamaaday sidaas darteed Soomaaliya dhanba ay tahay dowlad la'aan iyo wadan dowlad ku meel gaar haysta sida Imaaraadku u dhigay hadalka balse dowladda federaalka ah ee xilligan ayaa jawaab ka bixisay waxaana dowladda Soomaaliya ay tahay in ay jirto dadkeena Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaanan maskaxdooda iyo qalbigooda la gadan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya way jirtaa laakiin wuxuu waqtigoodu dhacay madaxda xilligan hogaamisa xukunka dadka ayaana waqtiga ka dhacay iyaga oo xitaa si hayn doona ilaa ay inta qof kale laga helayo oo iyaga bedela sidaas darteed Imaaraadku marnaba kuma saxana in wadankeena ka dhigo dowlad ku meel gaar ah oo aan in muddo ah ku soo jirnay haddaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay gaar ahaan maamulka xilligan waqtigiisu dhamaaday ayaa ka jawaab bixiyay arrintan dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay dalka Imaaraadka Carabta in uu wado isku dayo uu dalka kaga abuurayo qalalaase wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa waxa uu sheegay waraaqda ka soo baxday Imaaraadka inay ka muuqato aqoonsi la'aan la aqoonsanayn dowladda federaalka ah ee Soomaaliya warqadda Imaaraadku waxa ka muuqata ayaa leeyahay in aysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay inkareen dowladeena warqadda waxa sidoo kale ka muuqata ayaa leeyahay in Imaaraadku uu rabo in sida Yemen Liibiya iyo wadamo kale uu ka abuuro fowdo iyo barakac wasiirka oo shir jiraa'id ku qabta Muqdisho ayaa yiri shalay ayay markii ay ahayd dowladii Imaaraadku markii walaac ka muujisay qalalaasihii dhawaan ka dhacay Muqdisho iyada oo si dadban u sheegtay in Soomaaliya aysan dowlad ka jirin wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah waxay ugu baaqaysaa dowlad ku meel gaarka ah iyo sidoo kale dhammaanba dhinacyada inay isxakameeyaan si loo gaaro higsiga Soomaaliya ayaa la yiri taas oo dabcan ah qaladkii ugu weynaa ee dadka Soomaaliyeed uu Imaaraadka Carabtu ka galo maadaama uu sheegay in Soomaaliya aysan dowlad federaal ah oo dhameystiran ka jirin balse Imaaraadku wuxuu ilaabay in dowladan dadka hogaamiyo waqtigoodu dhacay laakiin ay dowladnimada Soomaaliya tahay mid jirta taas daawada ma ku raacsan tahay Imaaraadku in dowladnimadii Soomaaliya uu dib u dhigo isaga oo dana gaar leh sidoo kalena doonaya wax isaga u gooniyay inuu ka dhex fushado gudaha wadanka war kale oo degdeg ah hadda soo gaaray wuxuu sheegayaa in Faadumo Cali Jaamac Faadumo Nakruuma oo dabcan ahayd mid ka mid ah fanaaniintii gobolada Waaberi ugu saameynta badnaa ay magaalada Muqdisho ugu geeriyootay cudurkii halista ahaa waxa isbitaalka Martiini ee magaalada Muqdisho ku geeriyootay Faadumo Cali Jaamac oo loo yaqaan Nakruuma oo ahayd fanaanad caan ah oo ka tirsanayd xidigihii gobolada Waaberi Allah uu naxariistay fanaanada ay wararka qaar sheegayaan inay u geeriyootay cudurkii halista ahaa ee safmarka ah kaas oo cudur dabcan dilaa dad badan oo Soomaaliyeedna saameyn ku yeeshay qaarna sabab u noqday inay geeriyoodaan
taariikhdeeda marka aan eegno Faadumo Cali Jaamac Nkrumah waxay ka mid ahayd fanaaniinta fanka Soomaaliyeed soo galay barisamaadkii iyadoo sidoo kale in muddo ah fanka ku jirtay waxaana ay dabcan Faadumo ahayd mid ka mid ah fanaaniinta ugu saameynta badan ee wadankan soo maray waxaana ka tirsanayd hobolada waabiri xidigihii soo maray. dhinaca kale haddii aan eegno magaalada Muqdisho waxaa leeyahay waxaa ka jirta weli xaalad kala cabsi ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya General Gordon iyo sidoo kale saldhigyo kale ayay ciidamo tiro badan ku tababaraysaa iyadoo la diyaariyay ciidamo heegan la geliyay balse mucaaradka ayaa sheegay in ciidankaas la doonayo in iyaga lagu weeraro sidaas darteed waxaa la sheegayaa wararka qaarna ay sheegayaan in magaalada Muqdisho gaar ahaan aaga Buulxubey halka ay degan yihiin musharaxiinta la soo dhigay hub aad u tiro badan iyo ciidan waxaana sidoo kale la yiri qoryaha RPG uu ku jiro iyo B9 ayaa magaalada gaar ahaan dabaqyada ay degan yihiin lagu xiray iyaga oo sababta ugu weyn ay sheeganayaan inay isku difaacayaan tani ayaa waxay tahay mid qalqal gelinaysa dadka aagaaska agdhow wararkan ayaana waxay yihiin warar dabcan la isla dhaxmarayo musharaxiintu xilligan ma ku saxan yihiin magaalada Muqdisho oo dabcan ah mid nabdoon dowladna ay ka jirto inay dabcan magaalada soo galiyaan hub iyaga oo sheegaya in wadanka dowladii ka jirtay ay waqtigeedu dhamaaday sidoo kalena ay qalalaas iyo wax ay dadku sheegeen inay aad uga xun yihiin abuurmayaan xilligan in imaaraadka iyo musharaxiinta mucaaradku ay u heshiiyeen ma ku muuqataa in magaalada Muqdisho la dhibaateeyo halka dhinaca mucaaradkuna ay sheegeen in dowladda federaalka ah ay hoos ku wadato Kenya waa dabcan dowladda wadanka Ethiopia oo iyadu qalaalaasaheeda dhinac budagaar ugu tuman u yahay labada dhinac waxay isku eedeynayaan xilligan dowladdu waxay imaaraadku ku eedeysay inay wataan musharaxiinta mucaaradka sidaasna la doonayay in magaalada iyo wadanka lagu burburiyo Liibiya iyo wadamo kale oo Yemen ka tahay la mid dhigo halka sidoo kale mucaaradkuna ay sheegeen in Kenya ay xiriirka u jirtay dowladda sidaas darteedna ay saaxiib dhow ka dhigatay Ethiopia iyada oo dana gooni ah ka wadato hadda siyaasadii Soomaaliya ayaa wadamo kale salka la gashay waxaana ay Soomaaliya iyo siyaasiyiinteedu u muuqdaan kuwa aan iyaga isxaqxagan karin ee markasta ku soo hoos gambanaya ee wadamo shisheeye oo mid kastaba dan gooni uu ka leeyahay wadankan bilicda iyo sidoo kale malaayiinka intifaacaadka ay ku jiraan ee Soomaaliya daawadayaal intaas aan ku soo gaweynana qaybtan waa qayb kamid ah qaybihii ugu muhiimsan ee barnaamijka wareedkeena saaxiib yaal intaan qaybta kale xigto kulmi doono waxaan idin leenahay nabadgelyo